سلام كدب runtii sharaf ay noo tahay inaan maanta aan ka soo qayb galno kala soo qayb galno IBS Bank munaasabadan lagu daahfuraayo adeega Visa card runtii oo ahaa adeeg ay bulshadu ay u baahnayd runtii waxay ahayd waa horumar la gaaray in maanta Soomaaliya waxa adeegan uu noqdo marka bangiga ugu horeeyay oo noo keenay Visa card kaasoo waxa way marka fududeyn doona marka dhaqdhaqaaqyada ganacsi iyo horumarinta ganacsiga iyo isticmaalka qofka bini'aadamka waxa uu u baahan yahay marka ka faa'iideysiga buruugta runtii IBS taariikhdeeda 7 sano waxa weeye waa ay jirtay oo wax yar mahad iyo Cabdirasaaq ay ka sheegeen laakiin runtii waxaan ka marqaati kacay aniga oo inta aan ka ogahay wax qabadkaas muddada 7 sano ay jirtay IBS ay sameysay 7 sano hawl la qaban lahaa ay u dhigatay ama ay ka badan tahay aniga si gaar ah ayaan ugu hambalyeynaya runtii sharafna way ii tahay in aan nasiib u yeesho saddex event kala duwan bangiga IBS oo marba tallaabo ay ka sii horeysay ay qaadayaan inaan goobjoog ka ahaado marqaati u ahaado waxaanan hubaan ka marqaati kacaya wax walba oo qorshaha plan oo IBS u degan runtii dadaal laba markii inay jiraan waqti ugu yarna ay suurto geliyaan waxaan tusaale u soo qaadanayaa iska sheegid ma ahan adeegii ugu horeeyay markii IBS ay ka furtay adeega ATM machine-ka magaalada Baydhabo oo xilligaas aan gudoomiye baarlamaanka koonfur galbeed ahaa waxaanu halkaan ku kulannay anoo iska socda Muqdisho safar gaaban mid ayaan mahad iyo teamkan ku kulannay arintaas aan isla soo hadal qaadnay marka wuxuu ii sheegay in ay suurtagal tahay ayna keeni doonaan adeegaas magaalada Baydhabo wali muddo yar oo cayiman oo ii sheegay marka aniga runtii waxaan u qaatay hadalkaas in iska uu ahaa qorshe aan suuragal ahayn muddadaas uu ii qabtay iyo inuu ku laakiin muddadii ay qabteen muddo ka soo dhow ayay waxay ka suura geliyeen runtii in adeegaas la furo waxa ku xigay tallaabadii labaad waxa waa nasiib u yeeshay inaan la joogo IBS hadana aan u xarig jaro marka laga soo tago Muqdisho xaruntii labaad ee dalka ay ka furtaan oo ahayd magaalada Baydhabo bangigaas runtii furitaankaasna IBS ee bangigaas ee Baydhabo ay ka furtayna waxa ay aad shacabka koonfur galbeed ay uga faa'iideysteen iyo ganacsadooda dadka danyarta runtii waana arin aan ku boorinayo kuna guubaabinayo runtii maanta Soomaaliya waxaanu nahay bulshada dadka ugu horumarsan ee lagu xanta dhanka ganacsiga inay aad ugu fiican yihiin usbuucan gudihiisa 3 wafdi oo kala duwan oo ka yimid wadamo kala duwan oo intaba u yimid wadanka Soomaaliya inay maalgashi ku sameystaan ayaan la kulmaayay waxyaabihii ay u yimaadeen wadanka ka sokow inay wadanka Soomaaliya maalgashi ku sameystaan waxa ugu muhiimsan hadan ay ku sheegay waxaanu rabnaa aanu wax ka barano ganacsatada Soomaaliyeed sababta Soomaalidu waxaan marqaati ka nahay wadamada aanu ka nimid horumarkii waxa dhanka ganacsiga ay ka gaareen marka waxaanu rabnaa inaan anaguna wadankan inaanu maalgashano wax ka soo saarno at the same time marka inaan khibradooda aan wax ka barano marka IBS waa idinkaga hambalyeynaya waxaan idin soo jeedinaa insha Allah idinka codsanaya marka in aad sida haddaba aad u shaqeysaan inaad ka geysataan bulshada Soomaaliyeed horumarkeeda gaar ahaan dhanka ganacsiga aniga sectorkaas ayaan mas'uul ka ahay oo maanta waxaad aragtaa wadankeenu waa inta ugu badan nolosha waxaan dhihi karnaa nuskeed waa ganacsiga iyo ganacsatada ayaanu ku tiirsanahay hawa ugu badnaadaan ganacsiyada yaryar iyo kuwa meel dhaxaadka oo maanta u baahan marka in la horumariyo si marka ayaguna ay u soo gaaraan heerka shirkadaha waaweyn ay gaarsiin sidoo kale baahida labaad maanta wadanka iyaga ka jirto oo aan u baahannahay in la horumariyo waa dhanka warshadeynta iyo horumarinta wax soo saarka dalka runtii wasaaraduna diyaar bay idinka tahay iyo xukuumaddu inay idinkala shaqeyso sida wadankan loo horumarin lahaa warshadihiisii maanta adeegan aad ka hirgeliseen wadanka Soomaaliya dadkii bangiyada iyo hay'adahan mas'uulka ka Visa kuma aysan soo dhiiradeen haddii aysan u muuqan ifafaalo horumarineed oo wadanka ay ka jirto wadanka maanta
waxa maalgelinta lagu sameeyay sanado ka hor laguma sameyn jirin laguma soo dhiiran jirin marka tani waxay muujinaysaa wadanka Soomaaliya waxa way meeshii uu taagnaa sanado ka hor ama maalmo ka hor inuu san taagnayn oo maanta uu gaarsiisan yahay marxalad qof walba waxa way uu ku soo dhiirado taasna waxa way waa ammaanteeda iska la runtii waa aad bay anaga noo farxad gelinaysa haddaanu nahay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo xukuumadda kaga wakiil oga ah horumarinta ganacsiga iyo ganacsatada ee Soomaaliya runtii markaanu aragna marka wadankii lagu soo dhiiraday waxa way ganacsiga iyo horumaraya taasina waxay muujinaysaa markeen dadaalkii iyo shaqadii ee wasaaradda iyo xukuumadduba ay qabteen waxa way in miro dhalkiisa oo maanta shirkadahan iyo dadkan iyo bunuugtan hay'adahan lala galay heshiisyadu waxa way ma aysan sahlanaateen haddii aysan jirin siyaasad iyo shuruuc u damaanad qaadayso siyaasad u jihaynaysa in wadanka uu diyaar u yahay in la maalgashto iyo damaanad qaad waxa way damaanad u qaaday waxa way hantidoodaas waxa way in meesha ugu wanaagsan ay marayso waxa way oo sida ugu waarayso marka runtii hambaliyaan idin leeyahay waan idinka raali gelin hadalka hadda idinku reeraaday waxa way marka insha Allah waxaan rajaynayaa marka inaan munaasabadan ka duwan kana soo horumarsan aan sugu imaano biidin Ilaahay kariim. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.